waxaa habeenkii xalay lagu soo gabagabeeyay Hotel Plaza ee magaalada Burco tartan ciyaareed loogu duceynayay isla markaana loogu magac daray Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi waxa madashii gabagabada ahayd ee koobkan loo qabtay ka soo qayb galay badiba bahda ciyaaraha ee gobolka Togdheer mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer ayaguna dhalinyaradii hal abuurida koobkan loogu duceynayay Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi lahaa ayaa iyaguna ka warbixiyay marxaladihii kala duwanaa ee uu la soo maray koobkaasi tartankaasi wuxuu ahaa tartan tabarucaad iyo saan horeba u sheegay marxalada adagna waan kala soo gudubnay ganacsato badan ayaa ka qayb qaadatay tartankan sidoo suurtagal lahaa oo kamid ah ganacsatada gobolka Togdheer tartamada noocan oo kala ah ee jawaabada ee aan kooxaysiga ahayn waxay wax badan ka bedelayaan tayada iyo kubadda gobolka korna way u soo qaadayaan kaliya ajandaha tartankan aan u qabanay wuxuu ahaa in dhalinyarada sportska ay sida caaw isku dhex fadhiyaan iyo bilaa cunfiyo bilaa qabyaalada ma laha inanka sportska shaqada uu qabanaya markuu sports isku abtirsanayo waa sports abwaanka tartankan aan ugu magac darnayna dadkeena Soomaalidu waxay yaqaanaan qofku markuu dhinto baa la xusaa qof nool xusidiisa insha Allah taala inay tahay noqoto tii ugu horeysay ee Ilaahay aanu ka dhigay tii ugu dambeysay aan u hambalyeynaya mar labaad iyo mar saddexaad ba gudoomiyaha sida wanaagsan muddadii gaabnayd ee uu xilka hayay uu hogaaminayo bahda sportska gobolkan teedii iyo qolyihii waxa weeye ku tartamay ee ku guuleystay koobka qolyahaasna run ahaantii aan ka mid nahayn oo aan ka qayb ahayn shirkad ahaan ugu mahadnaqaya ciyaarta wanaagsan ay soo bandhigeen waxa kubadda la yiraahdaa runtii waxa weeye runtii wax dhalinyarada dhan isu keenta waxyaalo badan loo adeegsado si uu baabiiso waxaan bogaadinayaa marka hore qabanqaabiye tartanka Maxamed Cabdullaahi Saciid oo ku magac dheer Ito Macallin Cali oo ah inaan oran karayo waa shakhsi aad u firfircoon aynu tashanno sidaan ahaan mayso isduwa maanta in haystaana isagoo ciyaartooy isagoo tababara iyo isagoo sidoo wanikii guulaha ku naalooleen loo keenay oo dhalinyarada iyo sportska danaynaysa ugu dambeyn siduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Cabdikariin Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa u mahadnaqay dhalinyaradii soo abaabushay tartan ciyaareedkan loogu duceynayay Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi xafladii xidhitaankii tartankii Hadraawi Cup ee soo qabanqaabiyeen guddiga qabanqaabada hormuudka u ahaa Suldaan Maxamed Awil Saciid oo sida runtii tartan aad u habaysna oo aad u qurux badna oo aynu ogeyn marxaladuhu soo maray sida wanaagsaneyd ee u daadiinayay Maxamed iyo guddidiisa waxaan leenahay aad iyo aad loogu mahadsantihiin in tartankii Hadraawi Cup waxaan xafladiisii fadhino Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi Allah caafimaad siiyo amriga Allah u barakeeyo waa nin tacab badan soo gashaday ummadiisa ugu dambeyn waxaa halkaas abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyay ciyaartoydii ku guuleysatay koobkan loogu duceynayay Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi iyo sidoo kale dadyowgii kala qayb qaatay koobkani Cabdiqani Baafa Star TV magaalada Burco